waxaan rabaa inaan noqdo public speaking haddaba maxaa sameeyaa haddaba waxaan ku hayaa 6 qodob oo ka caawinaya inaad noqotid public speaking qodobka koowaad dad badan la kulan si aad uga hesho fikrad kadibna aad uga sharaxdo muhiimadda fikradaas taasoo ka caawinaysa inaad awoodid inaad dadka la hadasho qodobka labaad noqo xubin si wax ku ool ugu shaqeysa samafalka waxaa kuu suuragelaya in aad dad badan u gudbiso aragtiyo iyo muhiimado waxaa kaloo kuu suuragelaya in aad dhaqamo cusub oo hadhow ka caawiyo aad barato qodobka saddexaad dhis kalsoonida u dhaxaysa adiga iyo dadka kale si aad fursad ugu hesho in aad noqoto qof dadka la wadaaga aragtiyo iyo fikrado kala duwan qodobka afraad dhis xirfad ku xiran guulaha noloshaada tusaale ahaan wax badan marka aad ku guulaysato waxa aad awoodaa in aad dadka u sheegto hababka aad ku guulaysatay adigoo dhiirigelin uga dhigaya sidii ay jidkaas u raaci lahaayeen qodobka shanaad wax badan aqri dadka aqriska wanaagsani waa dadka ugu cadcad dhanka fagaara ka hadalka sababtoo ah waxa ay hayaan macluumaad badan oo caawinaya isla markaana u suuragelinaya in ay dadka wax badan uga sheegaan iyaga oo ku kaabiya tusaalooyin badan oo quseeya hadba waxa ay ka hadlayaan qodobka lixaad noqo qof furfuran dadka dabacsan ee furfurani waxa ay awoodaan inay kasbadaan dadka isla markaana ay qanciyaan adna waa mid ay tahay inaad ku guulaysato sidii ay dadka mabsuud kula noqon lahaayeen waxaan rajaynayaa 6daasi qodob inaad waxan ka faa'iideeyay fadlan channelka subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ayna soo gelino waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh